daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed maanta waxaan ka hadlayaa guushii aynu ka gaadhnay inuu meeshii ka soo furano ninkii samafalaha ahaa ee wariyaha ee Oldoon aan ku darsado arrinta murugada leh ee maanta ummadda Soomaaliyeed haysata aan tacsiin halkan uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed ninka sarkaalka ah ee ciidamada Djibouti ka tirsanaa Lieutenant Fuad iyo nabarka xaq darre ee ku dhacay ee arkayseen ee dhuxurday suuliga ama kaniifka ama boosaneerada waxaan u sheegaynaa ninka Djibouti jooga sidaa ku sii jiri mayso ummadda Soomaaliyeed ee deegaankaas Oldoon waa la soo daayay ummaddaana soo furatay amnesty baa soo furatay labadii nin mucaaradka ah ee la hadlay ayaa iyaguna u dagaalamay sidoo maanta qiray ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliyeed ba u dagaalantay dhan walba laakiin su'aasha meesha taala waxa weeye marka hore muxuu xidhnaa maxaase intaas oo sanadood noloshiisii looga lumiyay Oldoon ninka la yiraahdo anigu ma aqoon shakhsiyan laakiin maanta hadalkiisii waxa iga soo baxday inuu yahay nin camiiq ah oo aqoon-yahana taariikh diimeed iyo mid cilmiyeed buu galay ilaa Nabi Yuusuf ayuu gaaray iyadoo lagu soo ururiyay qabiilkii xidhay kamarada sitaax oo wax ka duubayay inaanay fahmin baan boo maraynaya taariikhdii Nabi Yuusuf iyo 5 sanadood iyo wixii uu Nabi Yuusuf yiri ee laga wada hadlayay ninka waxa ka muuqatay inuu yahay nin professional ah oo aan cilqabe ahayn waayo taariikhdiisa iyo dhaqankiisa iyo meeshu ka soo jeedo ayaan midna cilqabka baan laga aqoon laakiin waxa laga yaqaanaa cadgoosiga waxa la yiraahdo taasina way loo taagid way idin muuqataa dhammaan bini aadankii hore ee meesha lagu xiray ee la baabiyay psychological damage lagu riday jeelashani waxay markay soo baxaan ay oran jireen waxaan u mahadnaqayaa Muuse Biixi oo meesha igu hayay ereyga maanta maydaan maqal waayo waa ereyada la ina baray waa Buffalo theory waxa weeye xeerkii psychologiga ee eyga loo laalaadin jiray cadka ilaa uu dareeriyo ee saacadana loo qaban jiray qaar hore aan daawanayay oo dadka masaakiinta ah ee la marahabaabiyay oo markay jeelasha ka soo baxaan ku tiraaba waxaan ku talinaynaa in jeelasha la dayactiro waa meesha ku xidhnaa waa wali oo ummad la sarxay intuu oran lahaa hal dumiyo saraakiisha meesha joogtaana waa dad wanaagsan kii ugu soo xidhayna waa mid ducaynaya waxaan u leenahay ninka odayga way soo ururtay jeel dambe iyo digdig ummadan lagu bajiyo hore ay ummadani uga soo gudubtay xaaladahan psychologiga ah ee dadka tirada yar ay kula wareegayaan arinta argoosi baa ka yaala arintaas waxa weeye arin wax garadka oo dhami ay la socdaan sida bini aadamka loo doonayo in loo caburiyo si loo sii wado barnaamijkan laynagu kor sameeyay ee ah heegiisamka oo imika ah ereyada ku soo biiray psychologiga oo kamid ah ereyada dulinimada adduunyada kale qofka bini aadamka ah marka xaq darro lagu soo xidho ereyga u horeeya ee uu ku tiraaba waxa weeye sharciga la tiigsanaya dadkii waqtigeyga lumiyay caruurtaydii oo 3 jir ayaan ka tagay maantana waa 6 jir oo intay korayeen waan ka maqnaa waan argoosanaya xuquuqul aadamahan la hadlaya waan iska dhicinaya ereyadaas adduunyada kale caalamka laga isticmaalaa laakiin waxaan iminka ummadan afka loogu riday la baabiyay wanaga hore u soo xusay dadka jeelashan loo samaystay ee meesha ku jirno Heegalanta meesha Soomaaliland u taqaanay heegadu waa ogeedino Suldaan Cune ereygii uu ugu jawaabay Cali Guray markii uu caayay dhikleyada Cabdiraxmaan Ciro ee gudoomiyaha wadani ee uu nasabcaayay watii la qabtay isaga xukunku ma qabto ninka Cali Guray la yiraahdo sida Allaale iyo sida uu dooro 16 jeer ayuu ninka caayay iyo ninka la yiraahdo Cali Waraabe labada gudoomiyaba isagu se uu ka sareeyaa shaqada waxa la yiraahdaa fawq سؤال واحد هذا الوسطى فوق القانون نوع شرعه ما قبته رجع وقبتها وسلطان عناء وبقر رابي ووذات كعرب إماشى كحرنا يقطتك أنت كلا إماشى كحران حلوة قبل جدي على الجوري يبغى صدق كرة دولار برنامج كوخاته وهلك كوالمين تيجي سيوداتك وجوعايو مركب ساق يلو وأكتينه ماشي دجنتينه مك دجان كم وقوي كالصومالية أما هيجلانكا wuxuu isu bedelay qabiil dad kor fadhiya al-asa wal qasar hadalkii nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa kor taagantiin waxa weeye qorqabasho ayaa lagu cabsiinaya ama qorqabasho ayaa waddanka ku dhex joogaysa systematic humiliation bahdilaad qorshaysan ayaa ummadan loo sameeyay inuu qofku inta jeel galo kamarada la hor keero lagu cariigsado oo wax allaale iyo wixii uu sumcad iyo sharaf lahaa laga hubiyo laakiin wax isla ka hubiya ayaa sharaf ba lahayn qarannimada la idugu sheekaynayaana waa idin muuqataa inay tahay wuxuu wax heega dimuqraadiyadda la idugu sheekaynayo waa aragta qabiilka jeelka iyo maxkamadda iyo askarta iyo ciidanka intaba isku haya ee gudnimada baday ummadda meesha joogta waa idin muuqataa inay yihiin dad minority oo fara ku tirisa
bajin caburin cabsigelin ceebayn caytan waxa intay ku nooshahay waa intaa jeelashana waa in la dumiyaa maaha in la dayactiro waa in sidii loo dumin lahaa la yeelaa waxaa aad u cajaa'ib ah dad aad u tabar daran oo 8% ka ah heegalaanta marka la isu wadageeyo inay 92%gii kale ay u qorshaysteen nidaamkan ay ku jiraan ecological barrier-ka lagu xidhay ummadii aanay la fahansaneynba systemkani sida uu ula dhaqmayo ee ummadan lagu hayo waxaanu ku leenahay kuwa heegadana mabruuk raganimada aan la timaadeen ummadda kale ku afduubateen go'doon siyaasadeed iyagoo ku jira lacag la'aan ku dhacday European-kii ka tageen Amerikaankii ka tageen Ethiopia ka tagtay dowladii federaalku ka tagtay caalamkii kale ka tagay EU-di ka tagtay ayaa wali ay kor joogaan taasi waxa weeye waxay tusaysaa raganimada meesha ku jirta xalay faraska ninka la yiraahdo waxa uu shaqo ugu dhuftaa ka sii badiyo heegada waxaanu leenahay ku sii wada dadka meesha ay ugu xiran sida u sii maamul lahaydeen una maalin lahaydeen sida xoolaha waxa maalmaha wixii cajiibka ah ee aan la yaabay kamid ah magaca sheegashadii faraha badnayd ragii beenaalayaasha ahaa ee sanamta sheegay jiray ninka la yiraahdo dhega weyne wadad qabiil haysato aad ku dagaalanto berberiya sheekh baad ka dagaalami lahayd maad cararteen cali guray ina xaashi wix baan soo fariisteen ayaa markii burco la galay beentii aan laga xishoon jirin ayuu loo sheegay Ethiopia ragii raga ahaa ee caawa ciida wada hoos maray ay joogaan waxaan ugu dhacay anagu waanu xidhnay wajeelasha Ethiopia ayaanu ku jiro miyana heegadu jeelba ka bixin mar ina kood burbaa kala baxay oo birjeex bay ku xidhnaayeen mar waxay ku lixdaa kala baxayay oo mandheere ku xidhnaayeen waa wax aad aan ula yaabay heegadu meel allaale meesha ay jirto ma jeel bay ka galaysaa waxa weeyaan inaanay waxba ahayn frustrated baynu ka dhignay baraha bulshadu way isku yaaciyeen nidaamkan sabab kale isugu yaaciyeen ma jirto xaqaa'iqan la qarinayo ee wariyayaashan iyo nimanka u xiran yihiin oo kaliya ayaa laga horiyay nidaamka hay'adda maxalliga ugu sameeyay nidaamka dawliga ee noloshaada farta aad qaado waagu markuu bariya toosto ilaa inta aad gamayso waxa aad ku shaqaysaa waa nidaam dawladeed haddaad shaqo doonayso dawladdaas aad ka tahay citizenka ama aad degan tahay ayaa shaqadaada mas'uulka ah haddaad dhakhtar tagayso haddii wada la dhisayo haddii qof dibad loo dirayo haddii darajo la bixinayo haddii dhakhtar la dhisayo haddii beere la beerayo haddii idaacad laga shaqaynayo intiiba iyaga ayaa gacantooda ku urursaday taasina raganimo ay dadka dheer yihiin weeye waxaa kaloo idiin muuqataa meesha dadka kale ee la idigu daray ee muxallalka ahi inay yihiin sida loogu qurxiyo bani aadan kale oo dhex jooga taa lafteeduna guul ay gaadheen weeye meesha nimanka waxay maraysaa ground zero waa goob yaalay meelaan gacal iiga muuqan xaaladay maraysaa kuwii kale ee sheegay jiray ee sanan baan nahay ee burco ku dhamaaday ee hargeysa ku dhamaaday ee cergaabo ku dhamaaday ee hareeraheeda ku dhamaadayna waxaanu ku leenahay iyagana nin abeesa korsadow adigaa u aay soba hore Soomaalidu tiri geesiga tolxun ka dhashaa malaha taariikh dhaga weyne dhika la yiraahdo Ethiopia ku xidhnaa kii kalena uu ku xidhnaa Cabdullaahi Khasaarana uu ku xidhnaa meesha la yiraahdo Birjeex miiskii saraakiisha kii kale Ruush maalintii loo talaha Morgan baan gacan ka jabiyay waxaan anigu la yaabay war waxaan miyaan qofka hadhowto aanu istaawanin waxaan lagu hadlayo waxaanu leenahay colaadda Soomaaliyada qaadateen intii absame xasuuqdeen iyo intii samaroon xasuuqdeenna shicibka ahaa ila shicibka la dagaalantaane ku darsada dhaga weynow waxaad lahayd jeel baan ku jiray Ethiopia markii raggu soo galiyay iminkana waxaad ku jirtaa jeel psychological oo jeelka beenta la yiraahdo iyo bararawda taariikhda laguma qoraan idigu leenay af taariikhda dhiig baa lagu xardhaa caalamka taariikhdii soo martay ninba waxay ugu maqaalaa inaanu saaxiibnaayo meesha heegalaan ka dhex jooga waxay ku sheekaystaan ninkii Joseph Goebbels la oran jiray ee ahaan jiray propagandistka dowladii Naziga ayaa yiri beenta saad ugu celcelinaysaa iyo run noqotaa warninkaasi 5 milyan oo askari iyo institutionno iyo tiro iyo aqoon jarmal ayuu lahaa afkaartu doonaba ha aaminsanaadee afar qof oo qaxoontuga carri magaalada deganaayeen oo been ku nool oo cashuur ku nool propagandadoodu iyaga dhexdooda ma dhaafayso intaa ay isu duubteen bay ku koobnaanaysaa wuxuu dhinkooda yiri in Cabdullaahi Xasan buu ahaa beerka lagu mudiyo fulu waa beedadayaaye goortuu bidhaan cadaw arko ayuu balow yiraahdaaye inaan baaha moodka laga baajinayn yaa u sheega waxaa kaloo idigu bishaareynaya ummadda Soomaaliyeed dhawaan inay soo dayn doono toos war ah idaacadda ka bixi doona Facebookeeda idaacadda codka Soomaaliyeed oo aad dhageysan doontaan dhammaan geyiga Soomaaliyeed warkeedii oo shiilan oo aan la shaandhaynin oo aynu isku weydaarsano waxyaabaha mar walba taagan iyo wixii hore inagoo meel dhexdhexaad ah ka istaagayna gray area aan dhanna u janjeerin
ummadana sii doona platform ama gole ay ku wada doodaan intooda doonaysa inay aqoon soo gudbiyaan dhammaantiin waxaan u leenahay nooli kulante